qaar ka mid ah danyarta magaalada Baydhabo ayaa ka dalbaday shirkadda korontada Beko in ay wax ka bedesho qiimaha korontada tan iyo intii ay jirto musiibadan faraha ba'an ku haysa caalamka waxayna ay muujiyeen inta badan bulshada magaalada Baydhabo in ay yihiin danyar aan waxba haysan haddana ay u dheer tahay shaqo la'aan corona awgees sidaas daraadeed in loo baahan yahay in ay yareeyaan qarashaadka korontada maamulka sare ee shirkadda korontada Beko haddaba waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Baydhabo ayaa arrimahaasi ka hadlay may bas gaare meelung aan ka salaamay bahda RTN TV oo marwalba iyo onheegan inoo may baa walkasta wali agawada shacabka haysada gudbiyaan waana kama santii boqolkiiba boqolasan laha iidiidana siin ka hambaleeye howlihiisa weedan dhagdhagaaga soo biyaasan tideen hadii una shacabka reer Baydhabo may baa meelun koodsadaan khaasatan oo may baa yani maamulka yani iyo shaqaalaha oo Beko shirkad dadka hadii una reer Baydhabo ay dhagaalama jara ida dadka tabar yaryiin hano meel raay beesma haysadaan shaqalaga jarta arlaada corona wali leeyakeedii lankasta karantiila gili lankasta kushkoomada yiikahay lanka muudayna ma jara marka may boosdaan korontada iniyo may baayani kisto no dhiman sida yani hamar bagi midimisan ka suubiyan iyo meelo kale ka suubiyan laakiin leen erna dadku may baay reer Baydhabo leeyahay kulli loomoyan ariiwnga in leen erna oo aan sagaare lang fiiri sababtee anoo may baano soo man helay yalanko yamil baraf kala ka suubiyay barafkii ma suubiyay teeri markaas may beeray Beko hoblan dhawa dhini yeelan dhawaado may baayani korontadii walaay mis biyayaan wargadoonta kan dollar korna la keenshane wala SB waaye saas daraadii waa in barafkan soo bixiyay marka agabadooyin badan jiraan dad badan may booyeen dhibaatada saayste marka may baqosadaan shirkadda Beko iyo may galan iyo may booyeen iyo firmo gaareen weeldadaas dadka reer Baydhabo inagii midimada soo biyaan waana sagaare iyo siin qosadaan ay bakumada dhalinyarada maarne koonfur galbeed oo dhalinyarada oo roga kumadaha Baydhabo qaraan Baydhabo roga من يوم بقول شركة بيكو ما بقول قيمة دمس يا سميتي تي حمر بيكو حمرنا حمر بيكو ما قيمة دمس سميتي ويجا ولا قيمة دمس نسمى كورونا فيروس كوي ما ندرادية يا ما ندتكي إذا كجران ما نشغلانة ما يا إيه تذكرني إذا قلالاري إذا ما نكجران تدشقي هاي مجران كورونا فيروس كلا كورونا هاي ممكن كورونا فيروس يوم الآن كنا ما دايما بقول شركة بيكو أنتني سميتي قيمة دمس ويجي لان حديك جاي كمان ملي $300 $300 كيشان فدي هو بعد ما أنا اللي كان سمي $7 $9 شانت إنفاي ما أنا قدرت كيران بعد موضوع لان شغله ملي إذا لك جرى سدا قد ما أنا هرمود عمله ولكن ما أنا أفري يا ما أنا نفتي سمي هرمود إذا كمان حصلت هرمود ما أنا ولا كوكو أفري ما أنا أفرك ما أنا ولا أول أفري هاي ما أنا على كدور إبا ما أنا دتين دنگ يصير ما بس ينقص دانه أنت سيدك دقة ما أنا بوجن حرستني في دي دنگ وجرت إني كورنتون مع ندر المرويل بأمبحاسة أو شركة بيكو نيون هنشيغان إني كورنتداس الجرت أما عطسي هندي بدان كو جوداس فرنجيرة جودكر والولب دولد ما يكو عطسدانه إني كورنتون مرويل ببلاش نسكوب بحاسة أمني هان مدلهم كحضر حتى أمني هان حتى والولب يا كوكوي كور Beko inni si degdeg ah dawlad walaal ku qabat dhawaan ay ahayd markii maamulka shirkadda korontada Beko ee gobolka Banaadir ay qiimo dhimis fiican ay u sameysay shacabka magaaladaasi taasina ay ka dhigan tahay in dadka reer Baydhabo ay codsigooda ay u jeedistaan maamulka Beko Maxamed Iqsir Jito RTN TV Baydhabo